Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear brothers and sisters. Welcome to our YouTube channel Osman Pancher for learning or studying the English language. Walaalayaal kusoo dhawaada channelkeena Osman Pancher aan ka baranayna luqadda Englishka. Waxaan aad ugu xumahay inaan kala maqneen muddo aad u fara badan. Waqti dheer ayaan aad u kala maqneen. Waqtigaasi dheer mashquul aad u fara badan ayaa I haystay insha Allah. laakiin waxaan rajeyn doonaa cashiradeena inay inoo sii socon doonaan sida ugu wanaagsan. laakiin waxaan rajeynayaa cashiradeena inay inoo sii socon doonaan inkastoo cashiradu ay u baahan yihiin in la geliyo juhdi badan, waqti badan, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin in la duubo cashiradii, in editing lagu sameeyo. intaasoo idinla waa dareemi kartaan haddii aad tihiin dad aad u fahamsan maadada IT-ga ama dad waxbarashada fahamsan. haddii aad tihiin waa dareemi kartaan. marka sidaa daraadeed waxaan idinka codsanayaa inaa idinkuna aad sabartaan, cashiraduna aad la wadaagtaan asxaabtiina kale si ay aga faa'iideystaan luqadda Englishka. waxaadna ogaataan inaan mar waliba anigoo aan jeclahay inaan idinla wadaago wixii aan aqaano ama aqoonta aan ka aqaano luqadda Englishka iyo wixii fikrada ah inaan halka kan idinkugu soo gudbiyo hadduu idmo. marka sidaan ognahay cashiradeeni wuxuu inoo ahaa taxane luqadda Englishka anaga oo kasoo bilaabnay basic hoose ABC-da. waxaana maraynay cashirkeeni 68 guud ahaan barashada luqadda Englishka. sidoo kale intana waxaan baranaynaa buugga new conceptiga ee first things first-ga. waxaa kale inta oo aan baranaynay grammarka. marka grammarku wuxuu inoo maraya cashirkeeni 3 halka buugga new conceptiga first things first-gana oo inoo maraya cashirkeeni 22. marka sidaa daraadeed waxaan idinka codsanayaa cashiradii hore inaan muraajacooyin kusoo sameysaan si cashirka hadda aan mareyno aad ula socotaan ama aad ula qabsataan. maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeeni 69 guud ahaan, gaar ahaan cashirkeeni 4 ee grammarka maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeeni 4 guud ahaanna waxaan qaadanaynaa cashirkeeni 69 ee barashada luqadda Englishka. cashirkeeni maanta ciwaankiisuna waxa weeyaan waa possessive adjectives ayaan baranaynaa. marka lagu dhahayo marka possessive waa lahaasho, adjectivesna waa sifooyin. possessive adjectives marka waa sifooyinka lahaashaha. hore waan usoo aragnay sifooyinka lahaashaha, hase ahaatee si waxaan usoo baranay new concept ahaan. laakiin maanta laga bilaabo haddii lagu dhaho maxay yihiin possessive adjectives, waxaan kaa rabaa inaad taqaanid oo aad sheegi kartid. ama haddii lagu weydiiyo maxay yihiin erayadan, waa inaad dhihi kartaa waa possessive adjectives. marka possessive adjectives waa sifooyinka lahaashaha. haddii aad grammarka la socotay qaabkii hordhaca ahay ayaan cashiradii kusii wadi doonaa hadduu idmo. marka possessive adjectives waa sifooyinka lahaashaha. waxaan qaadanaynaa maanta sifooyinka lahaashaha waa 7. hore waxaan usoo qaadanay cashirkeeni 1 iyo 2 waxaan kusoo cashirkeeni 2 iyo 3 waxaan kusoo qaadanay waxaan kusoo qaadanay subjective pronouns iyo objective pronouns. balse maanta waxaan qaadanaynaa possessive adjectives. marka possessive adjectives waxa weeyaan waa my waa waxayga. my waa waxa adigu aad leedahay. my waa waxayga. our waa waxeena. their waa waxooda. your waa waxaaga. your sidoo kale waxay noqotaa waxiina. dad badan waa dhihi kartaa waxiina oo ah your. hal qof markuu yaan waxaa dhihi kartaa your oo ah waxaaga. my waa waxayga. our waa waxeena. their waa waxooda. your waa waxaaga. your waxiina labadaba waa la dhihi karaa. her
her waa waxeeda ayada ah, ayada macnaha her waxeeda. His waa waxiisa, his waa waxiisa. It is waa waxeeda iyo wixiisa oo wixii ibni aadam ka soo hara ah. markaad isticmaalaysa xayawaanada, digaagada, beedkeeda ama ukunteeda oo kale markaad dhigayso waxaad isticmaalaysaa it is. It is egg oo kale waa digaagada ukunteeda oo kale. It is aad u isticmaali kartaa marka it is waa iyada ama isaga oo ah wixii ibni aadam ka soo hara. halka lixda kaleente ibni aadamka loo isticmaali karo. Okay, my waa waxayga, our waa waxeena, their waa waxooda, your waa waxaaga, your isla ayadii waa wixiina, her waa waxeeda oo ayada ah, his waa wixiisa, it is waa waxeeda ama wixiisa oo wixii ibni aadam ka soo hara ah. marka waxaan filayaa inaad ila fahamteen todobadaas. waxaa loo yaqaanaa todobadaas waxaa loo yaqaanaa possessive adjectives ayaa loo yaqaanaa oo ah sifooyinka lahaanshaha. waxaan ka bixinaynaa marka examples oo very easy ah si aad u fahamtaan. mar walba possessive adjectives kuna wuxuu ku barayaa waxa aad lahaanshaha, wuxuu tilmaamayaa lahaasho. Okay, examples marka waa tusaalooyin. waxaad dhihi kartaa oo kale my car. my markaad dhahdid magac kastaad keeni kartaa. my car gaarigayga, our car gaarigeena, their car gaarigooda, your car gaarigaaga, your car gaarigiina waa dhihi kartaa. ama waxaad dhihi kartaa your cars gaariyaashiina, your pen qalinbiirahaaga, your penis qalinbiirayaashiina. labadaba waa isticmaali kartaa adoo dad jamac la hadlaya, adoo qof oo keli ah la hadlayaba. her ka gaarigeeda, his ka gaarigiisa, it is ka madhehena eeyaasha qaaraa gaari leh. marka it is waxaan u isticmaali karnaa oo waxaan dhihi karnaa it is house, gurigiisu is very small, aad ayuu u yaryahay. tusaalaan eeyada qaar waxay leeyihiin ama digaagada qaar ama qooleyda qaar guryaal yaryar. marka waxaan dhihi karnaa it is house, gurigiisa is very small, aad ayuu u yaryahay. marka waxaan u maleynayaa horta xoogaa inaad ila fahamteen cashirkeeni possessive adjectiveska. ma jecli in horta inaan waqtiga idinku dheereeyo, kista idinka maqnaayna aad iyo aadan uga xumahay, balse isbuucii waxaan isku dayi doonaa dhowr cashar, 2 ama 3 cashar inaad iga heli doontaan oo laakiin kala duwan. waxaan diyaar u ah inaan idinka dhiso luqadda ku hadalkeeda, qoristeeda, aqriskeeda iyo dhageysigeedaba intaba waan jeclahay. hase yeeshee haddii arday si gaara wax loo baraayana oo jirana waxaan diyaar u ah inaan si gaara group gaara aan sameyn doono oo si gaara wax loo bari doono. groupkaasina waxaan sameyn doonaa number gooni ah. numberadii hore numberka hore idin sheegi jiray, number aan ahayn ayaan idin sameyn doonaa. numberkaas oo marka ardayda sida gaarka ah loo rabaan in wax loo baro ay aga soo codsan doonaan insha Allah. marka dhanka commentiga waxaan rabaa inaad ku qortaan erayada idin sheegayo objectigooda waa inaad ku qortaa oo ah I objectigiisa inaad ii qortidaan rabaa, iyo they objectigiisa, iyo waxaan kaloo ka rabaa she objectigeeda. marka I iyo they iyo she objectiyadooda inaad ii qortidaan idinka rabaa haddii aad la socoteen casharadii hore. marka cashirkeeni afraad ee grammarka halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. guud ahaanna waa cashirkeeni 69aad. aniga oo ah teacher Osman Abdulqaadir Panjar waxaan idin leeyahay waxbarashada lagu dadaalo. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.